waxaan qabay wallah badan, sababtoo ah waxaan ogahay inaanan ku saxnayn Ilaah hortiisa. Waxaan ku tukaaday oo akhriyay Quraankayga, laakiin waxaan dareemay wallah badan iyo cabsi badan. Waxaan doonayaa inaan Ilaahay la heshiiyo, iyo inkastoo aan isku dayo inaan sameeyo camal wanaagsan, walwalkaygii wuu sii kordhaa. Sideen Ilaahay ula heshiin karaa? Sideen Ilaahay nabad uga heli karaa? Tan waa su'aal fiican. Maanta waxaan kuu hayaa war wanaagsan, laakiin ka hor intaanan kuu sheegin warka wanaagsan, waxaan kaa rabaa inaan kaa caawiyo inaad fahamto dhibaatadaada. Ka hor inta uusan dhakhtarku kuu sheegin daawada saxda ah, waa inuu caddeeyo dhibaatadaada. Sababta aad ugu baahan tahay inaad Ilaahay la heshiiso waa cadaawad baa ka dhaxaysa adiga iyo Ilaahay. Sabab dembiyadeenna aawadiis, cahdigii waa la jebiyey oo Ilaahayna waa laga xumaaday, oo col baa idinka dhexeeya adiga iyo Ilaahaaga. Sida Nebi Ishacyaa leeyahay, xumaatooyinkiinnu way idinkala socday idinka iyo Ilaahiinna, oo dembiyadiinnuna wejigiisa way idinka qariyeen si uusan u maqlin. Hadda ka hor intaanan kuu sheegin sida loola heshiiyo Ilaah, waxaa jira 2 shay oo aad u baahan tahay inaad fahamto. 1. Qiimaha cafiska. 2. Baahida loo qabo dhexdhexaadiye. Qof kasta oo Soomaali ah wuu og yahay in dib u heshiisiintu ay u baahan tahay 2 arrimood: lacag bixinta iyo dhexdhexaadiye. Marka ninku dilo, qiimaha dib u heshiisiintu waa 100 geel. Lacag la'aan dib u heshiisiin ma jirto. Taas waa sida cadaaladdu u shaqayso. Hadda waa isku mid Ilaah. Marka dembi jiro, waxaa jira qiimo. Si aad xaq ugu istaagto Ilaah hortiis, qiimaha dembiyadaada waa in la bixiyaa. Hadda waxaad tidhaahdaa, miyuusan Ilaah dembiga cafiyi karin bixin la'aan? Maya, ma awoodo. Haddii aad dib ugu noqotid Aadam iyo Xaawa, dembi kasta wuxuu dalbaday qiime. Taasi waa sababta ay dadka Ilaah ugu baahdeen inay Alla baryaan iyo in xayawaan laga kufaaro gudeeyo dembiyadooda. Sidoo kale Ilaah wuxuu Muuse u sheegay inuusan dembi ka tegi doonin ciqaab la'aan. Ilaahna isma beddelin. Ilaah waa cadaalad. Cadaaladdu waxay mar walba dalbataa in dembiga la bixiyo. Marka qiimaha madax furashada la bixiyo, waxaad ka hadli kartaa ku saabsan dib u heshiisiinta. Tan waa dhibaatadaada weyn. Ilaah waa cadaalad oo mana dhaafayo dembigaaga. Hadda Khaalid, waa maxay qiimaha madax furashada dembiga? Ilaah wuxuu inoo sheegay mushaharka dembigu waa dhimasho. Qiimaha dembigu ma aha toobadkeen, waa dhimasho weligeed ah. Ilaah wuxuu ku siinayaa mushaharka dembigaaga, oo wuxuu ku siinayaa dhimasho weligeed ah dembigaaga aawadiis. Sidaa darteed, si aad Ilaah xaq ugu noqoto, waxaad u baahan tahay badbaadiye, kan diyaar u ah oo awood u leh inuu ku dhinto booskaaga. Isagu keliya wuxuu bixin karaa qiimaha dembigaaga si uu u raalli geliyo dalabaadka cadaaladda oo uu kaaga sii daayo maxkamadda cadaaladda. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay dhexdhexaadiye. Dhexdhexaadiye ayaa looga baahan yahay inuu dib u heshiisiiyo labada qof. Nin aan Ilaah la heshiin karin marka uu jebiyo sharciga Ilaah. Taariikhda oo dhan, Ilaah had iyo jeer wuxuu dembiilayaasha la macaamili jiray dhexdhexaadiye. Sidan ayaa looga shaqeeyaa dhaqanka Soomaalida. Waa sida ay maxkamadda uga shaqayso, waana sida ay mar walba Ilaahay ula shaqaysay. Si aad Ilaah ula heshiiso, waxaad u baahan tahay dhexdhexaadiye isku keeni kara adiga iyo Ilaahay. Dhexdhexaadiyahan waa inuu matalaa 2 dhinac. Ilaah iyo nin waa inuu Ilaah si buuxda u yaqaan, oo waa inuu bini'aadmiga si buuxda u yaqaan. Dhexdhexaadiyahan waa Ilaah iyo nin labadaba. Isagu awood u leh inuu dacwadaada ku dacweeyo, maxaa yeelay isagu waa Ilaah qudhiisa, oo isagu waa mid ku naxariisan kara, maxaa yeelay jir buu noqday. Haddaba, sidee baad Ilaah ula heshiin kartaa? Ilaah wuxuu ku bixiyey badbaadiye Khaalid. Isagu waa kan dembiyadaada kafaara gud u noqon kara. Isaguna waa kan dhexdhexaadin kara adiga iyo Ilaah. Taasi waa Rabbiga Yeshuuca Masiix. Kani waa warka Khaalid.
ilaah dunidu masiix kula heshiiyey isagoo aan dembiyadooda ku xisaabaynin. haddaba ilaah muxuu dembiyada dadka ugu tirin waayey iyaga? waayo wuxuu iyaga ku tiriyaa masiixa. sida rasuulku uu yidhi, masiix wuxuu inaga furtay inkaartii sharciga isagoo inkaari noo noqday. waayo waxaa qoran, mid kasta oo geed ka soo deldelanu wuu inkaaran yahay. haddaba khaalid, qiimaha dembiga 2 jeer ma la bixin karaa? maya. marka bixinta dembiga la bixiyo, xor baa tahay, nabad baad ku haysataa ilaah, waxaad la heshiisay ilaah. haddaba saaxiib, maxaad sugaysaa? waa kan dhexdhexaadiyaha oo xisaabtaada kuu xallin kara ilaah. isagu waa kan faaragudka dembiyadaada si uu kuu xoreeyo. rumayso isaga oo isla daqiiqadanba ilaah la heshii. sida qoran, masiix aawadiis waxaannu idinku baryaynaa ilaah la heshiiya. wuxuu isaga oo aan dembi aqoonin ka dhigay inuu dembi noqdo aawadeen, inaynu noqonno xaqnimada ilaah ee ku jirta isaga. ruuxa quduuska ha kuu furo indhahaaga oo runta Yeshuuca.